waxaa dib u soo laabanaysa bilicda gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo uu aad u sii biyo celinayo webiga Shabeelle ee mara qaybo ka mid ah gobollada dalka ee fatahaadda ballaaran ka sameeyay gudaha magaalada Beledweyne. Maalmo aanan qurux badnayn ayaa soo maray magaalada Beledweyne, hase ahaatee Alle ayaa ku mahadsan oo bulshadii ka barakacay fatahaadda u fududeeyay in ay ku dulqaataan bishii Ramadaan ayna ku soomaan cimilo kulul iyo dhul buuraley ah. Ma jiraan deeqo soo gaaray dadka ku barakacay deegaanada ku teedsan magaalada Beledweyne, iyadoo ay jiraan warar iskhilaafsan oo ku aadan in madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu lunsaday lacagihii loogu talagalay in wax lagaga qabto fatahaadda webiga Shabeelle. Arrintani oo ay ka hadleen mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabelle oo uu ugu horeeyo xildhibaan kala dire, inkastoo madaxweyne Waare uusan wax jawaab ka bixin eedeyntan dusha lagaga tuurayo. Ibraahim Maxamed Xasan, Ibraahim Jamuni, Raadiyaha TV-ga caalamiga Hami, magaalada Beledweyne.